madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu sheegay maalintii Axaddii inaanu wax dembi ah u arag xiriir ganacsi ee hore Hunter Biden oo ah wiil uu dhalay Joe Biden uu la yeeshay dalalka Ukraine iyo Ruushka. Putin ayaa sheegay inuu khilaafsan yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo arrintani ka dhigtay weerarada ugu badan ee uu ku qaadayo ninka kula tartamaya doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee Joe Biden. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ka jawaabayay faallooyin uu bixiyay dhigiisa dalka Mareykanka Trump intii lagu guda jiray doodaha telefishinka ee uu la yeeshay ninka la tartamaya ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ka hor doorashada dalkaasi ka dhacaysa November 3. Madaxweyne Trump oo ku raad jooga ray ururin ayaa dooda u adeegsaday inuu eedeymo ugu soo jeediyo Biden iyo wiilkiisa Hunter oo sida uu sheegay ku kacay falal anshax xumo oo ka dhacay Ukraine. Haba yaraatee ma jiraan wax cadeymo ah oo ilaa hadda la xaqiijiyay kuwaasi oo lagu taageerayo eedeymaha uu soo jeediyay Donald Trump. Waxaanu ninkaas sida weyn ula tartamaya ee Joe Biden ku tilmaamay kuwa been abuur ah oo la rabo in magaca iyo sumcadda lagaga dilo. Vladimir Putin ayaa waxa uu hore u amaanay Trump hadalkii uu ku sheegay inuu doonayo inuu xiriir wanaagsan la yeesho Moscow, isagoo Putin sheegay inuu Ruushku la shaqayn doono hogaamiye kasta oo Mareykan ah, isagoo sidoo kalena murashaxa xisbiga dimuqraadiga u sharaxan Joe Biden ku tilmaamay hadalladiisu inay yihiin kuwo fiiqan oo ka dhan ah dalkiisa Ruushka. Madaxweyne Putin ayaa u muuqday mid aan saaxiibtinimo badan u muujinayn Trump hadalladiisii laga sii daayay TV-ga dalka Ruushka maalintii Axaddii. Hadalladaasi oo dadka siyaasadda falanqeeya qaar ka mid ay ku tilmaameen inay yihiin kuwo uu ku doonayo inuu ku xushmeeyo Biden maruu ka hadlayay eedeymaha loo haysto wiilka uu dhalay murashaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden kaasi oo la yidhaahdo Hunter Biden ayaa waxa uu xusay in laga yaabo inuu ku leeyahay Ukraine ganacsi isaguna aanu ogeyn, taasina aanay khusayn. Waxa uu sheegay inay taasi u taalo dadka Mareykanka iyo dadka reer Ukraine. Madaxweyne Putin ayaa xusay in ugu yaraan Hunter Biden uu ku lahaa hal shirkad, taasi oo uu sheegay inuu ficil ahaan madax ka ahaa, isla markaana uu isagu ku qiimeynayo wax walba oo uu lacag fiican ka sameeyay oo aanu u arag ninkaasi inuu yahay dembiile sida uu sheegay sida ay isaga la tahay. Hay'adaha sirdoonka Mareykanka ayaa waxa ay soo gabagabeeyeen in Ruushku isku dayay inuu farageliyo doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee 2016 iyadoo markaasi la sheegay in dalabka Ruushku uu ahaa sidii ay u keeni lahaayeen madaxweynenimada Mareykanka murashaxya iyagu markaasi garabka ku hayeen oo ah midka imika ka taliya Mareykanka madaxweyne Donald Trump. Eedeymahaasi oo ay Moscow si weyn u beenisay. Ruushka ayaa sidoo kale iska fogeeyay eedeymo uga yimi hay'adda sirdoonka Mareykanka, taasi oo ay ku sheegtay inay faragelinayaan doorashada Mareykanka ee sanadkan. Axmed Maxamuud Yuusuf, telefishinka Saab. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom.